محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى حرارك مالنتو حبط حورهايو لحال حيه حقال وحكو ترينين حجاب لحرو حنون نفتلس كقاضو حسابتي آخر حجذي حباشي حبيب نورو أضاحك مكارمنايه munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada aqoon-yahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. culimadiinkii halkaasi ka hadlay ka sheekiyay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo sidoo kale mucjizaadkii nabigeena ayaa waxaa kamid ahaa Suleymaan Xasan Ibraahim. nabiga calayhi asalaatu wasalaam bishaan oo hadda aan ku jirno Rabiicul Awwal ayuu ku dhashtay sanadka la yiraahdo wuxuuna dhashay rasuulkeena Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi caamul fiil sanadka caamul fiil ee loo yaqaano sanadkii maroodiga nabiga calayhi asalaatu wasalaam bishaas ayuu ku dhashtay bishaan aad iyo aad qiimaha badan u leh qaayaha u leh ayaa haddana nabigeena calayhi asalaatu wasalaam maalinta uu dhalinayo waxay ahayd maalin isniin ah ayay ahayd nabiga sallallahu calayhi wasallama xadiis ayuu rasuulkeena Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi markaas noo sheegayo dhalashadiisa oo ka hadlayo oo wuxuu dhahay nabigeena calayhi asalaatu wasalaam maalinka isniinta ah aniga waxaan aad ugu weyneeyaa anigu xusaa waa maalinkii aniga yacni lay dhalay saas oo yiri rasuulkeena Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi waa markii la warsaday oo la dhahay nabigeena Muhammad maalinka isniinta maxaa u soontaa wuxuu yiri rasuulkeena Muhammad maalinka isniinta waxaan u soomaa waa maalinka aniga lay dhalay ayuu rasuulkeena dhahay maxaa marka culimada waxay halkaas adeecan ay soo dilishadaan maalinkaas nabiga oo sheegay oo tilmaamayo oo asoo dhalanayo wuxuu aad ugu weyneeyay soonka ayuu ku weyneeyay soon saxaabta yani wax kale oo u jawaabin oo wax kala siinin ayuu u sheegay wuxuu dhahay maalinkan waa maalinka aniga lay dhalay ayuu dhahay salawaatullaahi wa salaamu calayhi sidoo kale xubnihii munaasabada ka qayb galay ee halkaasi qasiidooyinka nabi amaanka ku soo bandhigay waxaa kamid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Cabdullaahi نورو جدكي جنانو جليعي محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى قصيدة لما تياقتين كيت لقاري وما تأوقات اي قلبيين قرحية قسل هلدايو خير هلقو دذالو قبور بالو قذا قف بمال انتيسا ايبو نقبي قبورها غير نقاتسي محمد رسول الله صلى محمد رسول الله صلى عليك وسلم المولى Sheekh Ahmed Abubakar Gaashaanle oo kamid ahaa culimadiinkii ka qayb galay munaasabadan lagu xuseeyay dhalashada nabigeena Muhammad isla markaana ka dhacday Mawlaca Xaaji Maxamuud ee degmada Boondheere ayaa ka sheekiyay ahmiyada ay ummadda islaamka ugu fadhiso dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee marka nabiga ilaaha amaanay qaala Allahu ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي ينتهى ملائكته كسلي أنو كان محنا أو نالك رباي إنو كسلنا نبيك إنو وينينو إلها ويني إنو وينينو حرير كيس إلهي نغتدغو جوغي ميني ولا دمها beriga nabiga dhalashadiisii ilaa bisha mawlid gabagabadii munaasabada waxaa soo xiraya Sheekh Ibraahim Sanay oo kamid ah culimadiinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho isla markaana halkaasi ka jeediyay khasaa'id la xiriira dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo waliba isaga oo ka sheekeeyay taariikhda nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa Allah ka yeelay يمد وأخبرها وحي شيء في فقر محمد إنك لو فاني دون أو كوري أو ملح الدنيا آخر سفير
nabigaasa muhammadin وقدره نفيس قدر يسنا أي نفيس هاي شرف أي تحت مالكي الحصاية تمني تضو قور الحصاية صلاة الحدير والحصاية مولد كادي لقارنا الحصاية إلياس داود حسن تلفزيون كإستار مقدشو.